بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا وناكسن أصحابتي لقيمة يقايا عليه ومعلنك سولا بورتال واحد حسطان دور ما مذكرين دين سوداي برنامج بريف هرمرة ودنك بنتلان يتقال الله بسوق هذا إيمينك برنامج وحيسة بدن وinvestigative journalist ayaa idin diyaariyey iyo dagaalka qaawan ee lagu soo qaaday proxy-ga ee lagu soo qaaday Puntland iyagoo la isticmaalayo United Arab Emirates ama Imaaraadka Carabta isu tagay barnaamijkan waqti badan ayaa geliyay kulli isha macallin dad badan way arki doonaan wayna la yaabi doonaan dagaalkan qaawan ee lagu soo qaaday Puntland si loo burburiyo iyadoo iska kaashadeen dad aad u fara badan oo Soomaali, Carab, Turki, nooc walba European ay soo kaashadeen bal intaan ka faaloonin qaybta dambe ku soo dhawaada barnaamijkii iyo qaabka dagaalka loogu soo qaaday Puntland oo kamid ah isteediyada Soomaaliya kuwooda ugu waaweyn isla markaana ugu muhiimsan soo dhawaada waxaa laga yaabaa in aad isweydiisaan su'aasha ah waa maxay dagaalka lagu soo qaaday Puntland oo isku bahaysteen Carab, Turki, European dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa u dhashay Puntland oo siyaasadda Saciid Cabdullaahi Deni ka soo horjeeda. Ugu horeyn Puntland waa member state dowladda federaalka Soomaaliya ma ahan wadan madax banaan. Sida dastuurka ku meel gaarka ah uu qorayana dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka mas'uul ah difaaca iyo arrimaha dibadda. Dagaalka Puntland lagu soo qaaday waa mid proxy ah ama wadanka Imaaraadka Carabta loogu soo gabanayo waayo Qatar Turkey European waxay ula dagaalaan Puntland haba yaraatee ma jiro Imaaraadka wuxuu gacan aad u weyn ka geystay la dagaalanka argagixisada halista ah ee Daesh isagoo garab istaagay sida ciidanka Puntland tababar xooggan ay u heli lahaayeen ganacsi soo jireen ah ayaa ka dhaxeeya Puntland iyo United Arab Emirates tan iyo intii uu bilowday dagaalkii Gaza waxaa la faafiyey akhbaaraad been abuur ah oo lagu dhaawacayo Puntland iyo maamulkeeda iyadoo danta ugu weyn ay ahayd dagaal hoosaad la rabay in lagu wiiqo maamulka Deni iyo iyadoo la doonayay in lagu bedelo dad reer Puntland ah oo dowladda federaalka Soomaaliya siday doonaan ula shaqaysan kara arrimahan waxay bilowdeen markii dastuurka la isku mari waayey oo lagu heshiin waayey been abuurkii ugu horeeyey wuxuu ahaa in la yidhi Imaaraadka ayaa madaarka Boosaaso soo dhigay raadaar lagu ilaalinayo gantaalada Xuutiyiinta reer Yemen ay ku gamayeen Israel ugu horeyn aan isla eegno juqraafiga bariga dhexe iyo meelaha muhiimka ah dhulka Yemen ee Xuutiyiinta ay gacanta ku hayaan ee gantaalada laga soo rido waa intan aad maapka ku aragtaan sida caasimada Sanca, Damaar, Ticis iyo dhulka ay gantaalada ka tuuraan oo ku yaala buuraleyda Yemanta Koonfureed. Sanca iyo Boosaaso waxay isu jiraan 700 kilomitir haddii la xisaabo qaabka crow flies ama wada diyaaradeed. Magaalada Sanca iyo dekedda Eilat oo ku taalla Israel oo ah meesha ay ku dhamaato badda cas waxay isu jiraan 1837 kilomitir Boosaaso iyo Eilatna waxay isu jiraan 2580 kilomitir xarunta militariga ugu weyn ee Imaaraadka wuxuu ku yaalaa magaalada Al Dhafra oo 20 kilomitir u jirta caasimadda Imaaraadka Carabta ee magaalada Abu Dhabi waxa yaala nooc walba oo radar ah diyaaradaha dagaalka casriga ah drones iyo kuwa hawada jet fuelka ka siin kara diyaaradaha dagaalka sida diyaaradda casriga ee loo yaqaano Airbus A330 multi role tanker transport ama MRTT diyaaradan waxay duuli kartaa 18 saacadood iyadoon degin oo aan u baahnayn in jet fuel qaadato ama lagu shubo petrolka diyaaradaha ay ku duulaan bayska Al Dhafra iyo dekedda Eilat ee Israel waxay isu jiraan 2100 kilomitir iyagoo diyaarada nooca haysta maxay uga baahan yihiin in ay ka soo duulaan Abu Dhabi oo transit ku noqdaan magaalada Boosaaso u jirta 1500 kilomitir ama 2 saac iyo bar oo flight time xusuuso Abu Dhabi iyo Khartoum waxay isu jiraan 3 saac iyo bar ama 2300 kilomitir aqli ma tahay iyagoo bayskooda u isticmaali kara radar ay Israel kaga difaacaan Xuutiyiinta in ay dhigaan meel wadankooda aad uga fog oo security-ga aysan gacanta ku hayn radarka la yiri waxay Imaaraadka soo dhigeen magaalada Boosaaso waa kan sawirka ay meel walba soo dhigeen kuwa magac xumeeya Puntland kaasoo markaan baarnay aan ku ogaanay in ay yaaleen wadamada Slovakia, Czech iyo Poland oo ahaa raadaro lagu difaacayay NATO members mar kale waxaa raadaarka been abuurka ah lagu faafiyey social media iyadoo la isticmaalayo magac Ingiriis ah Sprinter Press News
mar walba waxay isku dayeen in ay faafiyaan muuqaalo been abuur ah oo ay ka soo qaateen bogagga militariga adduunka. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta waxay kala saxiixdeen bishii Janaayo 2023 heshiis military iyo in dib loo bilaabo wada shaqayntii kaasoo dowladda federaalka Soomaaliya uu saxiixay wasiirkii hore ee gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac. dhanka Imaaraadka waxa uu saxiixay wasiir dowlaha arrimaha difaaca Imaaraadka Maxamed bin Ahmed Al-Bawaardi. sida awgeed diyaarada ay leedahay militariga Imaaraadka hadday ka soo degto Muqdisho, Belidogle, Kismaayo ama Boosaaso wax farqi ah haba yaraatee u dhaxeeya ma jirto. yaa ka dambeeya been abuurka Puntland laga faafiyey iyadoo lala dagaalayo Imaaraadka. waxa ugu horeeya journalka la yiraahdo Middle East Eye oo ah magazine London ka diiwaan gashan limited company ah isla markaana sheerka ugu badan uu leeyahay shakhsigan la yiraahdo Jamal Aoun Besaso. wuxuu ku dhashay waddanka Kuwait, wuxuu haysaa dhalasho Holland ama Netherland ah isagoo iminka degan magaalada London. waa shakhsi aad isu qariya oo secret ah. lacagta lagu maamulo ama lagu fangarayo 100% waxay ka timaadaa waddanka Qatar, iyadoo inta badan lagula dagaalamo wadamada qaliijka oo Imaaraadka ugu horeyso. haddii aad eegtaan magazinkan Middle East Eye, qoraalada ugu badan wuxuu ka qoraa Imaaraadka iyo xulafadiisa. qaas ahaan waxaad arkaysaan inta qoraal uu ka diyaariyey waddanka Imaaraadka Carabta isu tegay iyo Puntland tan iyo intay bilaabeen dagaalada Gaza iyo kuwa Suudaan. dagaalku waa proxy oo toos ugu socon Puntland laakiin lagula dagaalamayo Imaaraadka. ogsoonow xiriir walba oo militari iyo arrimaha dibadda ah waxaa saxiixa oo mas'uulka ah dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa kaloo aad loo buunbuuniyey jaraa'idka garabka bidix ee ka soo baxay waddanka UK ee la yiraahdo Guardian, kaasoo ka hadlay arrimaha Puntland iyo Imaaraadka. Guardian iyo Middle East Eye waxaa ka dhexeeya xiriir qoto dheer iyadoo editor in chief oo Middle East Eye uu yahay ex foreign correspondent of Guardian David Hurst oo sawirkiisa aad halkan ku aragtaan waqti badan u shaqeeyey Guardian. dagaalka warbaahinta ka socda waxaa aad iyo aad uga hadla shakhsi Turkiya oo la yiraahdo Umad Zakri Sari oo waqti badan geliyey suurad xumeynta Puntland isagoo akhbaaraadka ugu waaweyn looga soo gudbiyo Muqdisho iyo Dooxa. qoraalada uu baraha bulshada soo dhigo Umad Zakri Sari waxay inta badan fooda saaraan Imaaraadka iyo xulafadiisa. shakhsigan wuxuu aad uga hadlaa arrimaha ganacsada Soomaaliya iyo Kenya isagoo ku booriya in lacagahooda ay kala baxaan Kenya u soo wareejiyaan Turkey. Umad Zakri Sari wuxuu boqolaal qoraal ka diyaariyey Puntland oo ah dhul aanu hore u tegin isla markaana akhbaaraadka uu ka helo kuwa ka soo horjeeda Puntland iyo gaar ahaan maamulka madaxweyne Deni. qoraalkan oo ka mid ah kuwa maalinlaha uga hadla bartiisa X wuxuu ka been abuurayaa uu leeyahay ciidanka burburiyey Khartoum waa Colombian laga keenay Boosaaso Puntland iyadoo la ogyahay in Imaaraadka ay ku leeyihiin base military jasiiradda badweynta Hindiya ee Socotra. arrimaha inta badan ay ka hadlaan dadka ka soo horjeeda Imaaraadka iyo Puntland waa iyagoo yiri ciidamo Colombian ah ayaa Puntland lagu tababaraa kadibna Suudaan loo gudbiya. ilaa hadda wax cadeyna haba yaraatee lama hayo. waxa kale oo soo raaca jaraa'idyo ay leeyihiin dad European ah oo inta lacag la siiyo si freelance ah ay u qoraan qoraalo lid ku ah Imaaraadka iyo Puntland, kuwa oo inta badan lagu arko baraha bulshada qaas ahaan Twitterka ama X. dowladda federaalka Soomaaliya iyada ayaa maamusha Somali Civil Aviation Authority laakiin weli ma leh Somali Military Aviation Authority. waxaa hawada militariga maamula ciidanka Soomaaliya oo inta badan la maqlo markii buuraha calmiskaad ay Maraykanka iyo xulafadooda duqeeyaan, laakiin aanu ka hadlayn siday suurtagal ku tahay diyaarado military Imaaraad ay leeyihiin ay soo galaan dhul Soomaaliyeed iyagoo ruqsad ka helin dowladda federaalka Soomaaliya. shaki waxaan ku jirin in Suudaan uu ka dhacay xasuuq aad u foolxun. bishii April 2023 markii uu bilowday dagaalkii sokeeye ee u dhexeeyay ciidanka Suudaan iyo Maleeshiyada loo yaqaan Rapid Support Forces RSP waxaa dhacay xasuuq iyo macluul kaasoo lagu tilmaamay genocide oo ka dhacay galbeedka gobolka Darfur ee waddanka Suudaan. dhibaatada ugu badan waxay soo gaartay dadkii shacabka ahaa ee ku noolaa magaalada El Fasher kadib markii ay la wareegeen maleeshiyadii RSF. dad lagu qiyaasay ilaa iyo 150,000 ayaa ku dhimatay dagaalka ka socda Suudaan iyadoo 1.2 milyan ay ka carareen hoygoodii ay ku noolaayeen.
dhibaatada ka socota suudaan waxaa qaramada midoobay ay ku tilmaameen dhibaatada ugu weyn ee iminka adduunka ka jirta dadka soomaalida ee aqliga leh marnaba laga dhaadhicin maayo puntland iyo siyaasadeeda ayaa ka soo horjeeda ama la dagaalaysa dadka reer suudaan ee shacabka ah soomaaliya iyo suudaan xuduud male soomaaliya iyo suudaan waxaa ka dhexeeya xiriir aad u qoto dheer oo walaaltinimo iyo nooc walba ah iyadoo ardaydii ugu badnaa ee soomaalidu ay wax ka barteen waddanka suudaan sidaa awgeeda narrative-kan la abuuray ma ahan mid ku socota puntland waa mid lagula dagaalayo imaaraadka carabta isu tegay iyadoo loo isticmaalayo joornaalada adduunka ugu waaweyn isla markaana loo isticmaalayo siyaasiyiin fashilmay oo reer puntland ah iyo kuwa federaalka soomaaliya oo doonaya in ay bedelaan siciid cabdulaahi deni kuwa ugu daran waa kuwa reer puntlandka ee kala garan waayey puntland iyo siciid cabdulaahi deni iyagoo dantooda qaaska ah ay tahay siday u heli lahaayeen awoodda ay ku maamulaan puntland iyagoo marnaba aan ka fekerin haddii ay burburto puntland waxaa xusuus mudan in bishii luulyo 2025 ay ciidanka haramacad ee federaalka ay u goodiyeen sanaag taasoo la rabay in lagu qaso nabadda iyo xasiloonida puntland isla bishii luulyo waxaa dagaal ka dhex qarxay ciidanka puntland iyo ciidan taabacsanaa dhaqdhaqaaqi maaqir iyadoo dagaalka laga soo abaabulay muqdisho ugu dambayn puntland waxaa lagu soo qaaday dagaal qaawan oo qaab proxy ah loo isticmaalayo iyadoo la doonayay in doorashooyinka sidii la rabo loo maamusho sidaa aaweed si kastoo aad deni siyaasad ahaan uga soo horjeedid adigoo reer puntland ah gacantaada ha ku burburin oo hay u isticmaalin cadowga shisheeye iyo kan soomaalida waxaan filayaa barnaamijkii in aad ula dhacdeen oo ahaa barnaamij aad u gaaban laakiin soo bandhigay been abuurka iyo dagaalka qaawan ee lagu soo qaaday puntland si loo burburiyo iyadoo iska kaashadeen dadkii aad aragteen iyo waqtiga dheergeliya marka unless aad aragtid wax caddayn wata oo sax ah oo sharci ah oo legal ah weliga ha rumaysan waxyaabaha lagu soo qoro social media isla markaana been abuurka ah barnaamijkan aniga ayuu iga yimid shaqana kuma leh puntland cidna igama soo codsanin aniga arkay in dhul soomaaliyeed oo nabad ah oo barwaaqo ah dagaal siyaasadeed lagu soo qaaday isla markaana la doonayo in la burburiyo sidaa awgeed wixii ra'yi ahaan aad ka qabtid mar walba comment noo bixi youtube-ka iyo x-ka iyo meelaha kale facebook iyo tiktok aan soo gelinay waana mahadsantihiin intaana daawateen jazaak allah khayr